السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع عبد الرحمن مؤمن waxaynu bilaabi doonaa kooraska computer unlock and programming ama computerka jabintiisa iyo programmintiisa kooraskani wuxuu ka kooban yahay 4 chapter waxaanaynu ku dhameystiri doonaa muddo hal bila chapterka koobaad waxaynu kaga hadli doonaa computerka overview aynu ka bixin doono iyo taybiskiisa iyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin iyo computerka waxyaabaha lagu kala doorto marka aad iibsanayso ama aad cid kula talinayso soo kale waxaynu ku qaadan doonaa computerka laftigiisa marka la doonayo in description laga bixiyo chapterka labaad waxaynu ku qaadan doonaa waxa la yiraahdo installations inagoo sida flashta loo boot gareeyo ama CD-da loo boot gareeyo OS-ka waxa la yiraahdo loogu shubo computerka application software-iska sida loogu shubo utility software-iska wixii loo baahan yahay loogu shubo dhamaan waxa installation-adoo dhan drivers-ki iyo activation-iska qaabka loogu shubo computerka hadii ay ka dhacaan chapterka saddexaad waxaynu ku qaadan doonaa waa unlock inagoo computerka doonayna laba hab inaynu jabino sida userka loo sameeyo marka hore inaad password ku xiri karto computerka passwordka laba hab lagu jabinayo by software iyo by command chapterka ugu dambeeyana waxaynu ku qaadan doonaa data and PC security inagoo computerkeena USB-yada ka xanibayna si aan flash aynaan ogeyn loo gelin karin sidoo kale non drive partition-iska xidhanayna sidoo kale folder-iska wixii aynu u baahanahay xidhanayna network iyo waxyaabaha aynu ku dhex jirnaa in la inaga soo dhex access gareeyo xidhanna waa sida computerkeena u ilaashan karno oo dhan intaasaynu kusoo gabagabaynaa. Wassalaamu calaykum.